صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل تون أحسن صاحب بيال وتحنين وكصاب سنة نفقة ديرتو أباهنتاي. ما أنتوا حنقاضنا إن 10 كأفريقيا طبناد وحنا كصاب سيهي عريها اللي يراهدو كلورين. نانيستا عريها كلورين وسي ال أن يراهدو أما لأوي وعريها تضبيط طبناد كالجلك عرياشا كلورين ونيف كمد أورك تضباط كالجرك عرياشا تراتم كدو تضبيط طبن وليس أتم كدونا وصدون يشان لبيع أفرتن يشان كافتون كدو و نيجاتيف 1 كلورين waxay ka mid tahay curiyaasha yaryar ee lagama maarmaanka u ah dhirta. Hore waxaan u soo sheegnay curiyaasha dhirtu u baahan tahay inay u qaybsamaan laba nooc oo kala ah curiyaasha waaweyn oo ka kooban nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium iyo sulfur, iyo curiyaasha yaryar oo ayaguna ah tiro fara badan. waxaa ka mid ah marka curiyaasha yaryarka ah chlorine. marka chlorine waxay ka mid tahay curiyaasha yaryar ee dhirtu u baahan tahay. markaan leenahay curiyaasha yaryar waxaan ula jeednaa tiro aad u yar ayuu geedku uga baahan yahay. waxtarka chlorine-tu waxay ka qayb qaadataa nidaaminta socodka biyaha iyo waxyaabaha kale ee ku milan ee dhex maraya unugyada dhirta ama unugyada geedka. chlorine marka laga hadlayo waxtarkeeda waxa ugu muhiimsan oo qabata waxa weeyaan inay nidaamiso socodka biyaha dhex maraya geedka. biyaha iyo waxa ku milan ee geedka dhex maraya socodkooda ayay nidaamisaa. sidaana wuxuu ku ilaaliyaa isu dheelitirnaanta osmosiska si geedku u helo macaadinta uu ugu baahan yahay shaqada ilays cunto ku samaysashada ama loo yaqaano photosynthesis. osmosis waxaa loola jeedaa habka unugyada ay dareerayaashu u galaan ama ay uga soo baxaan ayaa waxaa la yiraahdaa osmosis. sidaana wuxuu ku ilaaliyaa isu dheelitirnaanta osmosiska si geedku u helo macaadinta uu ugu baahan yahay shaqada ilays cunto ku samaysashada ama photosynthesis. waayahay photosynthesis waxaa loola jeedaa habka dhirtu cuntadooda u samaysato. astaamaha yaraanta chlorine-tu markay geedku ku yaraato waxaa ka muuqanaya calaamado dhowr ah. calaamadahaasna waxaa ugu horeeya geedka oo dhara ama kaduuta. macnaha geedka waxa dharahaya oo kaduusho ka muuqanaysa waa caleemaha. sida aad ku aragtid hadda caleemaha halka kaaga muuqdo qaabka ay yihiin ayaa waxaa la yiraahdaa dharitaan ama isku soo ururid. caleemaha ayaa isku soo ururaya waxaana ka muuqanaysa sidii wax maaragtay laga nuugay biyihii oo dhacaankii laga saaray u ekaanayaan. 2 geedka oo yeesha xidido gaagaaban oo laamo badan oo qara weyn. macnaha xididada geedka chlorine yaraantu hayso way gaabanayaan, yacni kuwa qara leh ayay noqonayaan, isla markaana faracyo badan oo gaagaaban bay yeelanayaan. 3 midabka geedka oo guud ahaan jaalle isu bedela. geedku guud ahaan midabkiisu jaalle ama hurdi ayuu isu bedelayaa. kadibna wuxuu yeeshaa midab maariin ah. 4 caleemaha oo dhinacyada ama darfaha ka gubta. caleemaha geedka chlorine-tu ku yartahay ayaa dhinacyada caleenta ayaa waxaad ka dareemaysaa inay darfaha aad moodid in laga gubay. dhinacyada ama darfaha caleenta ayaa gubasho wax u eg ka muuqanayaan. 5 astaamaha yaraanta chlorine-tu badanaa waxaa lagu khaldaa kuwa yaraanta potassium. chlorine-tu mararka qaarkood hadday geedka ku badato waxay ku reebtaa ama u yeelataa raadad sunnimo ah ama waxyeelo. waxaana ka mid ah 1 caleemaha oo fiida iyo darfaha ka gubta. 2 caleemaha oo jaalle noqda kadibna dildilaaca. 3 guud ahaan koriimada geedka oo yaraata. caleemahan ku muuqanaya dhammaantood waxa ka muuqda waa astaamaha yaraanta chlorine ee geedka ay ku yartahay. sidoo kale caleemahan kale ku muuqanaya waxa ka muuqanaya waa qayb ka mid ah calaamadaha yaraanta chlorine. jazakumullahu khayran. casharkeena maanta intuu ku eg yahay aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.